السلام عليكم. شيخ وانت اللي ورن لهذا يسقى إنه يدين وضابة يحيد. على كل حال قولك يترترسين تيسو وواح نفتو سكشع الشيبة مركورة ويضعنا لغو ترترسيه وحونا هدي لغو داك ور أول بعضو هيلانيت قولك نوصي دوك عليه laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxaa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa haddaa kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya حقوق مادية ومثلا صداق باكو واجبي نفقة كو واجبتي سكن باكو واجبي يد فراش باكو واجبي وحاصل دم هو حقوق مادية وحنا وحقوق كجديسان مادة أو أهرقا يا أخلاق يا بني آدم كسيدو ودا جوغي كرو بني آدم كو حقوق ودا جوغا وأخلاق ده مركا دالنتو يسقور سنيسو هذا قف ولبا كريم بوس مريا لبنتي سوشيغا انت هذا جعجعورنمدا واد قرصتاون سوما عيد كورو سو قادو تلادا اينهانا وان لي ما جرتو نين وليبا فريدنimadiis iyo inuu ragga ka laga qaatay yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabta kuma tahay markaas la ogaanaya Soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay جدين ما لا عنت شبد ما لا دكتي بيد هذا وادي عمر لقى سو نقل جرين وفكو واحد برنكر تابيد هذا مركا اتصفر ودا قشان اداني سوكين حد واحد كان حيا اما مركا شبد ودا دكتان بيد هذا مركا اسكو دغان نقطان دي قفك الدمر اسكو دغان با نقطين وليربا ودا هويتين سدردد حقوق بدن بدن با ليسكولي ننكونا وعاشرهن بالمعروف بالليل يدنا وحليل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني انت الأولى إن لم يدون معروف بيلاده وللرجال درجة ومركالة الماء ننكم مد إرادة بوليه ووامحي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله آية داسين تايت المامس رجالكو وحاي ديرين قبض قوري وحويان مركا قوري قال لتشوغو inay qiwaamatul bayt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaarada reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaradeedii shirkadaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyay tirada badan la keenay
هدي شركات هدي دولة هدي مؤسسات هدي سيستم إداري هدي أورجانيزيشن سيستم إداري هذا في عم بيلاقينا هيراركي له كلا كورية عندنا ما مشوا عندنا تحت كوتشرته ودبتنا لك على دمبيو ميل بيديدين لك على دمبيو وجوريا جورو كلا سرين ما لها بين هذا إنك يا قبل وسكسيمين دبتنا وبربرة شركات أن كلا سرين لها يعني ما صعطه وحشري كلام معها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحت المامي صدح قف هداتنا ما لعد لا شوكتان أمير ياش هذا سفر كشرتان أمير سمايس تبعه بني آدم كهدو وذا النولي هيبة وين شرتا عد وحدارين يسا عد وحمامول يسا وين شرتا سناني ما شرتو لقى هاد لما يبني آدم لماذا ما كسي مني ها أدقى مدحوين بني آدم لماذا ما كسي منتين لكن سلطة لا يدراده الله إجمدي إنه سلطة دا سهيو guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka haday sulta timaadana maamul haduu yimaadana maxaa ka waajiba taaca maamulan la dacini ma jiro dii la yiraahdo shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaalu ku yeeli maayaan ma yeeshi shirkad soconaysa noqonaysa dii maamul yimaadana waa in taaca timaada sida ogeed baa quraanku wuxuu tilmaamaya rijaalku iyaga qiwaamatul bayt leh maamulka guriga iyaga leh dumarkana markaa waxa korkooda saaran taaca inay la yimaadaan wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam hadaan cid uun faraya inay cid u sujuudo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay taaca mutlaqa oo bil macruuf oo la timaado ayaa yana saaran haddii inaha la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtu baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiya waxa fiican siiya waxaynu moodnaa inuu nin fariida yahay laakiin maadada maaha maadada waxa ka fiican dhaqanka kale waxa allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya cidana wada nooshiin hadday naxariistay hadday cafis tahay hadday waxa shariicadu ina fartay ee akhlaaqiyaata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqan galiya waa guriga marka waxa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqanka ku yeesho ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo hadday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo waqti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn leeyna ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliya waxa uu quraanku inoo tilmaamay ama xadiista nabiga alayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyata waxa la rabaa cidda aynu la noolahay inaynu kula dhaqanno waanagoo waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeenu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay Soomaalidu meherka deedeen bay isaga haysataa ayo ma bixiso iska kulliba la siin maayo sheeg bay yiraahdeen wadaadka kuma heri laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay waliba waa xuquuq ay leedahay markaa in la siiyo inkastoo inaga curfigeenu noqday gabadhan haddii la siiyo xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahay waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayay waa xuquuq maaliya oo qofka lagu leeyahay iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhay maadada ka yimaada waa macruufka waa akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynaya waqtigii mala salaada waa gaadhaysaa sheekh cali baana baabkan mala khabiir ku ah marka inta ka hadhay isagaan u daynaya wassalaamu calaykum